guud ahaan Puntland baan anigu gudoomiyaha baarlamaanka u ahaa gaar ahaanna deegaan doorashadaydu waxay ahayd gobolada tan Sanaag iyo Highland oo aan xildhibaan ahaan ka gareeyay dadka aan si gaar ah u matelayay waxay ahaayeen goboladan laakiin guud ahaan Puntland oo dhan baan matelayay oo aan xilka gudoomiyenimada u hayay Puntland saad ogtiin oo hadda laga sanqarinayay waxay ahayd meel ay ku bahoobeen dad isir wadaagi markii dawladdii dhexe ee Soomaaliyeed ay burburtay oo Soomaali dawladdii u talin jirtay meesha ka baxday ayaa deegaamadii isku dhawaa isirkana wadaagay waxay ku bahoobeen oo ku tashadeen inay dhistaan maamulkaasi waxay ahayd awoodiisa waa la qaybsaday noocay u tahay waa la qaybsaday markaana dadku cid qanacsan iyo cid aan qanacsanaynba waxay danaynayeen in wax u dhismaan oo ay helaan maamul ay inta la helayo dawlad Soomaaliyeed oo cagaheeda isku taagta dib isugu taagta ay insha Allah danahooda fuliya amnigooda suga waxyaabihii uu qaban karo horumar iyo arrimaha bulshada aan ka shaqeeyo saasaa la isugu tagay waxbaana la qaybsaday malihi dadku way wada qanacsanaayeen laakiin marka dadku xeerkeen muhiimadda meesha ka soo bixi karto ah maamul taasaa dadku ku wada qanacsanaayeen systemkaana dadka deeqaa manaasibtu ma ay deeqdo ahdaaftii lagu dhisay waxa ugu muhiimsanaa in la helo dawlad Soomaaliyeed oo ay noqoto wasiilo lagu gaaro waxa xigay waxay ahaayeen in ummaddu ay waxan wadaagto una siman tahay loona kala dhaweyn lana kala lahayn la isuguna xoog sheegan la isuguna tumbuurin waa ahdaaftii lagu asaasay kuwii ugu muhiimsanaa weeye iyo kuwa kale la mida waxa soo baxday muddooyinkii dambena jirtay inuu yimi isriix inay ka weecatay Puntland ahdaaftii iyo mabaadiidii lagu dhisay oo ay ugu muhiimsanayd dawlad Soomaaliyeed oo ay noqoto caqabada ama cidda hor taagan dawlad Soomaaliyeed bayna iyada noqoto ama meeshay ka bakiraadahay waxa soo baxday iyana in dadkii ku bahoobay oo ku walaaloobay oo maamulkan dhistay ay u sinaan waayeen oo dad yari isku ururiyeen dadkiina iska xajiyeen oo maalinba koox iyo group uu yimaado dadku in badan dulqaad bay muujinayeen dulqaadkay muujinayeenna wuxuu ahaa maadaama waxan ay dhisan yihiin walina calaamadii ay jirto in aan la dhibaataynin wax la'aanna waxa dhaanta in wuxuuna jiraan oo muuqdaan dadku saasay ku qanacsanaayeen kuna war dhowrayeen maxay ahaydeen la isuguna tanaazulayay dadka dhulkan ku dhaqan Puntlandna runtii waa dad lagu yaqaan tanaasul wax badan indha ka qarsi maxay ahaydeen tolyeelkiisa dhaqda iyo waxyaabaha la midka waxa yimi iyana wax ka siiya badan oo hadda ah in la isxoogo in la kala sheegto in xataa magaalooyinkii dadka u dhaxeeyay ay dad gaar ah sheegtaan in la isu tumbuuro in aad wixii dhacay hadda oo aad ogeydeen ay dhacaan xabahaasi markay yimaadeen waxaad moodaa wixii deynay xuduudii ay si toos ah uga baxday iyo wadadii ay haysay meesha ay hadda ku socotaan ay tahay qardajeex iyo meel aan wada ahayn ama wadooyinkii loogu talagalay aan ahayn wixii dhacay waad ogeydeen anigu gudoomiyaha baarlamaankan ahaa ceebina ma jirinin dadka reer Puntland baan u shaqaynayay shacabku wax ceeb ay sheegteenna ma jirinin bal way ku qanacsanaayeen gudoonkayga iyo shaqada aan hayo ujeedkayguna wuxuu ahaa hadafkaygu laba shay baa ugu muhiimsanaa uu badnaa laakiin laba shay baa ugu muhiimsanaa mid wuxuu ahaa mas'uuliyaddii iyo xilkii la saaray ee aan kitaabka gacanta u saaray
ee aan ummadda reer Puntland u qaaday inay fusho oo wixii aniga igala gudboon ama aniga ay iga fusho ama wadada ugu macquulsan ay marto oo wixii wax saxi socdaan. Arinta labaadna waxay ahayd anuu nin mustaqbal siyaasadeed doonaya baan ahaa inaan shaarkaygu wasakhoobin Puntland xilka aan ummadda u qaadayna aanan ku ceeboobin aakhiro iyo adduunba. Labada muhiimadood bay lahayd. muhiimadii koowaad ayay caqabadahan iyo dagaalkani ka yimi. aniga ujeedkayga waan idin sheego wuxuu ahaa ummadda reer Puntland wax hagaagaan. wuxuu ahaa inaan lagu tagrifarin waxooda. wuxuu ahaa dadkii annagu aan u magacawnay oo aan mandate ka siinay annaga mandate ka siinay dadka annaga u shaqaalaynay inay xukumaan oo ay shaqada u qabtaan ma ahayn iyagu inay cidla ka qaateen oo iska heleen. waxa weeye miisaal waxaan idinku soo qaadi karaa kambanigaas oo board leh boardkiisii oo markaa isagu maamule shaqaan u magacaabay kambanigii kadibna maamulihii markaa uu magacawday dadkii la shaqayn lahaa exactly saas weey markaan aan idin cabiro boardku wuxuu ahaa baarlamaanka waxay soo saareen madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenkii ayaa waxay magacawdeen dadkii la shaqayn lahaa oo xukuumadda dadkii marka sidaa loo shaqaaleeyay oo ummadda wax loogu dhiibay waxay markiiba ka soo horjeesteen inay ummaddii si toos ugu shaqeeyaan ciddii wax ugu dhiibtana ay u noqdaan diyaar la xisaabtankooda diidaanna in la hago ama maxay ahaydeenay la yiraahdo wax sax ama wax toosiya. taasi waxay dhashay marka inay timaado hebel ma wada shaqayn karo iyo hebel meesha waa ka saaraynaa iyo wixiiba in laga dhigo wax cid jeebkeed ku jira oo ciday rabto eri karto ciday rabto saari karto magacuu doona ha sito awooddu doona ha lahaado. waxaa lagu tagrifaray dhaqaalihii ummadda waxaa lagu tagrifaray awooddii ummadda waxaa lagu tagrifaray midnimadii iyo wax wada lahaanshihii dadka Puntland. taasi waxay keentay marka in la isu xoog sheegto oo la is xoogo oo Puntland la kala sheegto oo waxyaabaha hadda aad maqasheen ay dhacaan. sidaa markay tahay dadku dad awalba dee tale isugu yimi buu ahaa waxaana dadku wada qancay inay wadaagaan oo wada dhiftaan bay ahaayeen. haddii ay wadooyinkii iyo ahdaaftii iyo mabaadi'dii lagu dhisay ka weecatana maxaa markaa imanaya waxaa imanaya in cid walba dib isugu noqoto oo tashato oo Puntland haddii la badbaadin karana la badbaadiyo oo dadka reer Puntland ay badbaadiyaan. haddii la badbaadin kari waayana markaa dee waxaa imanaysa waxa weeye in la kala tashado ayaa imanaysa. laakiin arrinta koowaad waxay tahay in la isku dayo Puntland in la badbaadiyo guud ahaan waayo iyadaa macna lagu lahaa iyadaa wax lagu ahaa iyadaa la wada lahaa iyadaa la wadaagay iyadaa cid walba dhankeeda ka eeganaysay. taas in la isku dayo oo shacabka reer Puntland meel kastay joogaan isku dayaan talo la isugu yimaado la badbaadiyo kooxda tuurta ku qaadatayna laga dhigo oo talo Puntland loo dhigo oo dadkii asalka u ahaa eldariskii iyo odayaashii iyo isimadii iyo aqoon-yahankii iyo culimaadudiinkii iyo ururadii bulshada iyo noocay u yihiinba ay taladeeda wadaagaan dibna loogu soo celiyo wadadii ay ka baxday iyo mabaadi'dii ay ka baydhay. taasaa muhiimadda koowaad inoo ah. taa haddii la waayo talo la filaa markaa imanayso dadku markii horeba isagoo gobollaa buu isu tegey wax diidayaa ma jiraan inay iyagoo gobollaa markaa ay wada noolaadaan kuna xidhmaan meeshii ay ku xidhmi karaan oo ay dowladda dhexe ugu horrayso. taladeedu intaas weeye warbixintayduna intaas weeye wixii intaa dhaafsiisan oo talo ah waxay u taallaa reer Puntland waxay u sii taallaa labada gobol oo aan ka soo jeedo deegaan doorashadayda ay ka soo jeedo Sanaag iyo Highland bay u taallaa iyaga ayaan insha Allah ka warsugaynaa waxaan ugu baaqaynaana
horena aanu sheegno shalay war-saxaafadeedkayga aan ku sheegay inay isugu yimaadaan shir loo dhan yahay dal iyo debad meel kastay joogaan. aniga muhiimi ma ahayn kursigu igumana cuslayn, waan awoodi karayay inaan iska fadhiyo, jeebna galo, xoogaagaygana aan iska gurto, guddoomiyana la yidhaahdo gawaari qurux badan aan fuulo, gawaari qurux badan aan fuulo, guri qurux badan ku jiro, maxay ahaydeenay dee wax walba ay isu kay saaraadaan. laakiin wax ka weyn baan ilaalinayay oo ah mas-uuliyaddii lay saaray aan u dhaartay iyo magiciinna oo aan sitay oo isaga laftigiisa u baahnaa inaan dhowro, oo aan la odhanin waa nin dhuuni qaato ah oo xoogaagiisa dee iskaga qanacsan laakiin aan cidna waxba ugu maqnayn. waa lay ogolaa dhaqaale, waa lay ogolaa wax walba, hadda waxaa la ogolaa inaan tanaasulo oo wax walba aan u baahanahay laysiiyo. laakiin wax ii cuntama ama dadka reer Puntland oo aan matalayo u cuntama ama gobolladaan gaar u sii matalayo u cuntama ama sharaftayda u cuntama ma ahayn. waxaan ku qancay oo ka doortay inaanan yeelin, insha Allah sharafna aan ku joogo, haddaan ka tagayna sharafan kaga tago. intaa waxa dheer anigu sifo sharciya baan ku imi, sifo sharciyaana ku tegi doonaa, ama waxaan ku tegi doonaa iyadoo tala Puntland la waayay oo markaa gobollada tani ay gaar u tashadeen, sidaasna markaa aan kaga tanaasulo oo ilaa iyaga aan ka tirsanahay markaa aan tala ku raaco. labada arrimood baan kaga tanaasuli karaa gudoomiyanimadii. waana mahadsantihiin, warkayga intaas aan ku koobayaa. taladu idinka idin taala, taladu idinka idin taala, reer Puntland bay u taala, cid kastoo waxgaraday u taala. waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.